Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Tusaale Channel. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa sheeko marna qosol ah, marna la yaab ah. Sheekadan oo dunida idilka yaabtay ayaa maanta jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo. Jonathan Lee waa ninka ugu dacwada badan dunida. Ninkanoo haddii aad ku qososho xataa kugu dacweynayo maxkamadda. Magaciisa oo dhammaystiran waa Jonathan Lee Richard. Waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka. Jonathan ayaa noqday qofka ugu dacwada badan dunida. Markii ugu horeysayba hooyadiis ayuu dacwo ku oogay isaga oo ku eedeeyay in aysan si fiican u soo korin. Waxa uuna ka qaatay lacag magdhow ah oo gaaraysa 20,000. Intaas kuma ekaan, waxa kale uu dacwad ku oogay dhammaan saaxiibadiisa isaga oo ku eedeeyay in ay si xun ula kaftabi jireen, ay caayi jireen iyo waqtiyada ay la balamaan in ay ka soo daahi jireen. Intaas kuma ekaan, waxa uu dacwad ku oogay dariskiisa, macallimiintiisa, qaraabadiisa, madaxweynayaasha wadamada qaarkood, dad magac leh iyo xitaa qaar ka mid ah askarta. Tirada dacwada uu dadka ku oogay waxa ay gaareen 2,600 oo dacwadood ilaa uu ku guuleystay abaalmarinta Guinness World Record. Kadibna wuxuu dacwad ku oogay mas'uuliyiinta Guinness World Record isagoo ku eedeeyay in ay ka dhigeen qof caan ah ayna faafiyeen warbixintiisa shakhsiga ah iyagoon ogolaansho ka haysan isaga. Intaas kuma uusan istaagin, sidoo kale waxaa la sheegay in uu dacwad ku oogay qaar ka mid ah shirkadaha sameeya ciyaaraha geemiska isagoo ku eedeeyay in ay waqti badan ka lumiyeen yaraantiisa. Waxaa u suurta gashay Jonathan in uu dacwadahan faraha badan uu ka helo lacag magdhow ah oo gaaraysa 850,000 oo doolarka Mareykanka ah. Mar uu waraysi siinayay mid ka mid ah TV-yada caanka ah ayaa Jonathan waxa uu si murugo leh u weydiiyey wariyihii, "Waa maxay sababta aan kali u ahay ee aan cidna ii jeclaanaynin?" Ninkii wariyaha ahaa ayaa aad ugu qoslay su'aashaas. Su'aal la yaab leh ayuu la noqotay, sababtoo ah nin mar walba maxkamad ka daba ordayo, qofkii ku qosla xataa dacwad ka gudbinaya yaa waa qofka jeclaanayo. Kadibna Jonathan wuu iska baxay. Maalintii labaad ayaa dacwad ku oogay wariyihii iyo TV-giiba isagoo ku eedeeyay in ay ku dheeldheeleen oo ay dhowri waayeen dareenkiisa. Waxa uuna magdhow ahaan uga qaatay lacag gaaraysa 50,000 oo doolar. Ka waran ninkan dacwadihiisa la yaabka iyo cajiibka ah. Anigana hadda waxaan sugayaa xilliga liisoo dhihi lahaa Jonathan ayaa ku soo dacweeyey, sababtoo ah adiga ayaan kuu soo gudbiyey sheekadiisa qosolka iyo la yaabka leh. Fadlan haddii aad nagu cusubtaa, subscribe noo saar, video aan like saar. Mahadsanid.